maanta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uga qayb galaya magaalada Addis Ababa shirweynaha madaxeedka ee dalalka Afrika sanadkii mar isugu yimaadaan shirkaas oo shalay bilowday madaxweynaha kasokow hadalkii uu ka jeediyey shirkaas oo madaxda Afrikaanka ee goobjooga ahaa u jeediyey wuxuu sii waday kulamadii uu la yeelanayay madaxda dalalka Afrikaanka ah intuu yimidna wuxuu arkay madax badan ay ka mid yihiin kuwa dalalka Afrikaanka xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Yurub iyo madax kaleeto maanta madaxweynuhu wuxuu la kulmay 5 madaxweyne madaxweynaha dalka Equatorial Guinea Teodoro Obiang madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa madaxweynaha Sudan Omar Hassan al-Bashir madaxweynaha Sudan wuxuu madaxweyne Farmaajo uga mahadnaqay taageerada joogtada ee Sudan ay la garab taagan tahay Soomaaliya oo ugu horeyso ardada tirada badan oo jaamacadaha Sudan wax ka barta marka iyo taageerada ay Sudan iyo walaalnimada ay la garab taagan tahay Soomaaliya waxayna ka wada hadleen sidii xiriirkaas walaalnimo loo sii xoojin lahaa sidoo kale madaxweynaha South Africa wuxuu kala hadlay xiriirka Soomaaliya iyo South Africa ka dhaxeeya sidii loo sii xoojin lahaa madaxweynaha South Africa gaar ahaan iyo madaxweynaha Equatorial Guinea labaduba waxay tilmaameen sida ay Soomaaliya ugu hayaan abaal joogta iyadoo ay Soomaaliya ay ahayd dalalkii ugu horeeyay ama ugu taageerada badnaa dalalkaas markay ama u dagaalamayeen xorriyadooda Equatorial Guinea oo kaleeto oo madaxweynahoodu uu u sheegay madaxweynaheena inay Soomaaliya ahayd dalkii ugu horeeyay ee aad u garab istaagay markay xorriyadda qaateen una dareemayay inuu Soomaaliya aad ugu daymaysan yahay ugu dambeystii madaxweynuhu wuxuu la qadeeyay maanta oo ay muddo sheekaysteen madaxweynaha dalka aan walaalaha nahay ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka walaalnimo aad u dhow ee labada dal ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti waa mahadsantihiin